ninkaa dhallinyarada arrinta ku dhacday waa dhacdo aan la arki jirin soomaaliduna qofku wuxuu isu keeno cid inuu ku eedeeyo maaha soomaalidu iyadaa isu keentay in la naco oo sabab ah hadday madaxweyne tahay hadday wasiir tahay hadday ganacsi tahay hadday nabadoon tahay hadday isin tahay in la naco soomaalidu iyadaa isu keentay oo iyagaa sabab ah dawladaha adduun weynaha sabab ma aha maraykan yaan lagu eeday ninkaa kuwa soomaalida oo uu wax u soo bartay baa labada lugood haysta haddii ninkuna labada lugood haysto horumar ma rasma karo mana boodi ma socon karo hore uma socon karo hadduu waddan kale ka dhalan lahaa hadduu maanta waddan kale ka dhalan lahaa heer buu joogi lahaa qiimo leh waddankiisana wax buu tari lahaa laakiin soomaali wax loo barto ma ninkii wax u bartay oo yidhi soomaali baan wax u soo bartay aakhiro maaqan laakiin adduunka ciqaab buu ku jira annagaa ka mid ah intaasoo dawladood shaqaale dawladood baan ka ahaa inta badan weligay tan maanta joogtoo kale ma arag oo ma maqal kowdhe oo dawlad samaynaysa ma arag adduunka waxa ugu xun markaad eegto xagga sharciga dawladaha suuxiyaha timaha iyo naagaha qaaqaawan iyo caabuda xaquuqul insaanka yaa kuma tuntaanin qofku xaqa xuquuqda uu leeyahay waa helaa oo iyaga ayna kaga fiican innagoo islaam ah oo kitaabkii qur-aanka jaamac oo diintii nebi maxamed haysana baynaan ku camal falayne waxaynu nahay shuuciyadiioo haddaba sirgaxan ninkaa dhallinyarada niyadjabka iyo niyadjabka ku dhacaya maxaa ilaahay baa xaggiisa wax ka taraya yuu isu quruudin waxbaad baratay maxaad shaqo la heli weyd rabbigayna waa isku xir dhahaya rabbigayga ku abuurtay isku xir shaqana waayimaysa inta adduunka nooshahayna ilaahay baa qaba halkaa waxaad marin lahayd wax dhaqo iyo xoola keen iyo dabaqyo dhiso iyo waxaasaa kugu jira iska saar soomaalida maxaa la gudboon mar haddii saas ku dhacday saa adduunka hadda soomaalida waxaa la gudboon xagga loo kici maayo xagga loo kici maayo xagga loo kici maayo xagga loo kici maayo waa xuduud habashaad oo xabad baa ka dhacaysa xaggaasna loo